السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواada اسم channel haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe-ka naga ilaawin. haddii aad horey noola joogteen like-ta nagu caawi. insha Allah maanta waxaan jeclaystay in muuqaal yar oo dhiirigelina aan idinla wadaago, muuqaalkaas oo anfacaya qof walba, yar iyo weyn, rag iyo dumarba. insha Allah maanta waxaan idin wadaa 8 waxyaabood oo qofka waqtiga ka dhumin kara ama waqtigiisa meel cidla ah ku maaragtay sheeg dhumin kara. sida la socon waqtigu waa wax qaali ah, qof kasta oo maanta waxa weeye nolol waqtigiisu waa muhiim inuu ilaashado oo san waqtigiisa waxa uu maaragtay muhiim aan ahayn oo ku dhumiyo. 8 waxyaabood ee waqtiga dhumiya waxaa kamid ah oo qofka noloshiisa wax yarnaan karto. number 1, sugidda cid ku dhiirigelisa. yacni mar walba inaad sugtid qof ku dhahaa hebel ama heblaayo ka kac meeshaan, waxaa qabsoosaan yeelkida halkan aad, marka inaad mar walba sugtid qof adiga maaragta waxa weeye horjooga ku noqda. waa qodobka koobaad. qodobka labaad, ka fakarka wax dadku ay ku dhihi doonaan. tusaale ahaan waxbaad rabtaa inaad qabatid, laakiin waxaad isleedahay waxaan hadaa qabto dadka maxay dhihi doonaan, dadka maxay oran doonaan ama layla yaabaa. xaqiiqdii waxaa weeye cid ku og iyo cid maaragtay kugu mashquulaysa iyo cid kula socota ma lahan. marka adigoo inaad waxaa weeye gudahaaga iyo hadallada aad iskula hadlaysid ee ka imaanay maaragtay maskaxdaada inaad maaragtay wax weeye aad kala dhicisid in cidna aysan maaragtay dadku waxa ay ku dhahaan wax shaqadaada ah aysan ahayn. wax walbo aad jeceshahay aad rabtid inaad sameysid oo aadan qofna ka baqin wuxuu ku dhihi doono. wax walbo dantaada ku jirto aad qabsatid. qodobka saddexaad, cabashada joogtada ah. tusaale ahaan inaad mar walba tiraahdid mar walba inaad cabatid oo markaas noloshaada aad maalin walba wax ka cabanaysid. maalin aad tirahdid nolosha aan ku jiro ima qancin, meeshaan deganahay ima cajabin, wadanka aan joogo wadan horumar laga sameyn karo ma ahan, saaxiibkan waa saaxiib maaragtay ishe waxa weeye hor socod ma laha. marka yacni wax walba inaad ka keentid cabasho aad ka keentid. marka cabashada joogtada ahna waqtiga way kaa dhumisaa. qodobka afraad, isku dayidda farxad gelinka dadka oo dhan. yacni tusaale ahaan inaa maanta qof walba aad isku daydo qofka inuu raali kaa noqdo, inuu ku faraxsanaado, inuu kugu qanacsanaado. runtii bini aadanka lama wada qancin karo. marka kaliya on ku dadaal adiga naftaada u farxad gelin lahayd oo aad naftaada u raali gelin lahayd iyo rabbigii ku abuurtay iyo waalidka. intaa waxay kasoo haray bini aadanka lama qancin karo, lamana raali gelin karo. haddaad tiraad maanta dadka oo dhan baan ku raali gelinayaa waad ku guuleysanaysaa ugu dambeyn. qodobka 5aad wuxuu noqon doonaa naftaada inaad dadka la barbardhigtid. yacni tusaale ahaan inaad maanta tiraad hebel waxaa soo helay anigana maxaan u heli waayey, hebel wuu guursaday ana maxaa u guursan waayey, hebel shaqan waxaa soo helay ana maxaa shaqaas u heli waayey. qof walba noloshiisu si gooniyay u socotaa, qaab gooniyay u socotaa. adigana noloshaada ilaahay qaab ugu talagalay ay ku socoto. marka qaabkaas ku qanacsanow. waxa weeye wuxuu ilaahay ku siiyay waxaad haysatidna maaragtay qanaacadeeda la imo. qodobka 6aad wuxuu noqon doonaa inaad markasta sameysid qalad isku mid. masalan maanta qalad baad sameysay, qaladkii maanta aad sameysay waxaa laga rabaa inaad casharka baratid oo mar dambe aadan ku laaban, in beri dambe qaladkii maanta aad sameysay inaad ku laabatid adiga oo eegay inay kuu soo baxdo natiijo ama maaragtay jawaab ka gedisan tii hore. marka khaladaad mar haddaa khalad gashid, mar labaad khaladkii aad gashay mar labaad yuusan kaa dhicin. sababtoo ah wax khalada haddaad sameysid, wax kasta oo khalada oo lagu celceliyo wax ka badan hal mar dhibaato ayay qofka u keeni karaan. qodobka 7aad, kala hormarinta ama kala hormarin la-aanta dantaada. howlahaaga iyo dantaada iyo noloshaada inaadan gelin karin ama aadan u sameyn karin jadwal. noloshaada maxaa kuu muhiima, danahaaga maxaa kuu muhiima, say u kala hormarsan yihiin iyo say u kala mudan yihiin. mar walba ahow qof noloshiisa u nidaamsan tahay oo dantiisa iyo danihiisa garan kara, wixii number 1 u ah iyo wixii number 2 u ah. qodobka ugu dambeeya oo maanta aan jeclaystay inaan idinla wadaago wuxuu noqon doonaa inaad ka baqdo inaad guuldaraysato. runtii guuldaradu ma aha wax laga baqo, sababtoo ah maanta haddaad meel ku guuldareysatid waxay kuu noqonaysaa yacni dhiirigelin, waayo aragnimo, khibrad bay kuu noqonaysaa aad uga feejignaan doontid waayaha dambe ee noloshaada. marka mar walba haddii aad mar guuleysatid ha isdhiibin, ha niyad jabin, ha calool xumaanin, horey usii soco, boorka iska jaf, waa la kufaa. laakiin inaa meeshii aad ku kuftay aad fadhidid waa wax laga fiican yahay.
insha Allah jimco wanaagsan. maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago dhiirigelintaas yarta haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like-tan ugu caawi la sii sheegi karay asxaabtaada muuqaalka iyo kanaalka haddaa ku cusub tahayna subscribe-ka naga ilaawin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.